soo dhawaada walaalayaal ku soo dhawaada channelkayga African Culture. maanta waxaan rabaa heestan inaan reaction ka sameeyo ku saabsan calanka Soomaaliya kan Puntland يعني Puntland waxaa ka socda waxaan loo baahnayn baa ka socda sheekooyin aan lagu farxin baa laga maqlayaa waxa is haysta ninkii meesha madaxda looga dhigay iyo dad kale is haysta Heblow Diyaano ciidamada la iska horkeenayaa boosasa laga qaxayaa maxay yihiin waxaas waxa waa la buunbuuninaya waxba lagu dardaraaya laakiin waxa ka soo sheekooyinka meesha aan ka maqlaayo sheekooyin fiican ma daniyo waxa weey horta meesha waxa weeyaan adiga oday lagaaga dhigay Puntlandna dhib badan baa loo soo maray waxa weeyaan qofka ninka meesha odaga looga dhigaana waxa laga sugayaa mas'uul baa laga sugayaa meeshan waa lagu dhiibay waxa lagu yiri sii maamul inta waqti baa lagu siiyay waqtiga maamul baa lagu yiri yacni meeshan inay wada meesha tan ee maxaytidto meeshan gobolka Puntland ma inuu dagaal galo waa arin xun weeyaan waa arin marna aqbali karinin meeshan dhib weyn baa loo soo maray shida badan baa loo soo maray dhisida inta asiyarta ah ee qayb yar oo Soomaaliya kamid ah waxa weey dhibaato badan baa loo soo maray qaybtaas kamid ah Soomaaliya meesha tan waxa weeyaan dadkaan iyagoo iska degan waayigi dagaalkii 17 la galay ka bacdi way inqilaabku uu dhacay ka bacdi weydii Cabdullaahi uu cararay Itoobiya in isagoo ka baqaayay in la dilo maxaa ku xigay Siyaad Barre inuu ciidankiisa dhan ku soo safay ma jarteen ilaa maxaytid Puntland ilaa iyo doolo oo Itoobiya dadka degan buu xiraa la soo xasuuqo xabadiyaan laga soo reeyay ragooda halalaayo magaalooyinkooda hala gubo gabdhahooda qabsada xoolahooda dhaca iyaguna sidii bay yaala waa saano u maqlayni marka daniyow meesha tan waxbaan kuu sheegayaa bal arag ninka kan ee maxaytidito isagu tuulo Puntland ah ka jooga oo islaanta ma dhibaanka ah soo hormartay meesha ciidanku iyagu ay ku haystaan ninkaas ay bas ay uga fureen maxaytid nin shibci ah oo miskiin oo reer miyi ah oo meesha xoolo marsiinayay xoolo watay inay inta iska qabsadaan inay meesha xiradooda la tagaan inay markaas lugaha baas kaga furaan boodiyaha baas kaga furaan xididadii dhiiga marka dhiigu faq inuu leeyahay ninkaasina wali nafti ku jiro oo ay jijiidaya islaan ma dhibaana soo marto ka sheekaynaysa waa la yaqaanaa ninkii markaas ay waxay ku tiri warmaandooyinow intaad ninka sida u galaysaan oo u silcinaysaan xabada si fiican ugu dhufta nafta ka dhacday waxay ka dhaxday maaha ninka dhimashadiisa inay ka dhacday yacni si xilqi xaalku uu ku jiray waxa dhaantay dhimasha dhaantay dariyow gabdhaha maxaytid reer Puntland inta la soo arursado oo magaalooyinka ay soo galaan ciidanku bay iska kaxaysan jireen cid ka celin jirayna ma jiraan ragii waa kala cararay waxay laayeen iyo waxay ka dhigeen iyo wax maxay Itoobiya kale ka dhigeen cid ka dhicinaysay meeshaas ma jirto way fahmaysaa cid ka celinaysay ma jirto wiida gurayso hooyooyinka wiida guri jirta intay askartii dalka Soomaaliya u dhalatay difaaci lahayd ama jareer ha ahaado ama jileec ha ahaado ama maxay ha ahaado kuwii dadku ugu sokeeyay iyaga dad ugu sokeeyaasa u galaayay war dhacba kamida marixaan baa kamida ciidanka waxa watay maanta wax loo kala haraay ma jirto jareer baa kamida jileec kala kamida cid kasta isugu jireen ka gala Liibiya la yiri fayl ka gala habeenka day ay ka haysteen intaas oo gabdhood 20 gabdhood ku dhawaad bay ka haysteen fayl bay ka galeen intay ciidankooda meesha ay gaasas iyagoo aaba la keen jiray oo tuulooyinka Puntland lagu soo heegaari jiray sida iyagu cadawgu yihiin dalkii ay u dhasheen gabdhaha shab iyo arag maxay inta la kaxaystay ciidanku meesha guriga magaalada ay ka soo arursadeen intii gabar nuureysay intay ka soo arursadeen ay jeexi la galeen degaraayeen markaasay fayl ka galeen gabdhaha kamida waxay tiri 15 marka ay qabsadeen aan miyir baa saasa fayl looga gali jiray hooyooyinka iyagoo uur leh ba maartay ay fayl ka gali jireen aysan dan u gali jirin shilinka iyo wax kasta ay haysatay waa ka dhici jiray xoolaaga iska qalan jireen gurigaagay baaran jireen ragay leyn jireen haye xagee ku barna waxa la yiraahdaa naabaal waligay ma arag naabaal iyo baasuuka iyo ilaa doolo bay noogu imaan jireen